bishii soo dhaaftay kadib markay sarkeen dhigiisa Prime Minister Gordon Brown iyo go'aankii ka soo baxay labada mas'uul ee ahay in la dhiso jaaliyad Soomaaliyeed isla markaana la furo safaarad after 20 years ayaan waxaan anigu Maxamed ahaan u soo istaagay inaan saanadeed waxa laga codsaday inaan ku soo dhaweeyo halkan madaxweynaha galmudug okay أبو ماتيان محمد إسماعيل كفور وحن تعالى مركز أنا نسودو ومدحونا محمد عبد العالم سي وانت أريد كاب وراوي هذا يلو ولي من أنت وتاجنا سي سودويت على أول غير من عبد القادر يو لا عبد القادر أنا هذا أو يقول أريد شيء تاجنا هذا هو فرح سنة مراسمة سي وصل قبل أن يروح هذا هذا ما سنتين مركله وحن كسودوين يا مدن محمد أحمد عالم مدحونا مع القبلات في كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريد runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay xafladan qadarinta iyo xushmada iyo qiimaha weyn marka waxaan ka baqayaa hadalkii aan ku soo talagalay oo hortay la wada yiri iyo wixii aan soo qortay oo la maray farxadda darteed inaan kala ilaawaa baan ka baqaa ama mari kari waayo marka dhamaantiin waa mahadsantiin runtii mahad celinta ballaaran inta aanan gelin haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed arrin culays nagu haysa dhan markaa ka eegtidna xoogaa ceeb nagu ah oo muddo dheer gacan Soomaaliyeed ku jirtay familkii Ingiriiska ahaa ee dhalashada halkan aan haysana hayay ee muddo dheer la haysto Soomaali baan nahay waa la sii deynayaa weli waa socodee waxaan leenahay haddii aan doonayn in la sii daayo hoos aan iskugu laabanno si hoose ha loo xisaabtamo dadkaas odayaasha waayeelka waa la sii dayn karaaye hal aan ku dadaalno hal dollar hadaan bixinana waa ku soo furan karaynaa walaalayaal dadka xafladan qabanqaabiyey ee sharafta weyn leh gabdhaha dhalinyarada ee uu horkacay haddana gudoomiyaha odayaasha iyo gudoomiyihii jaaliyadda galmudug ay horkacayeen inkastoo gabdhuhu qaybta ugu weyn ay ka qaateen dhalinyaro haddana gabdho iyo wiilal leh oo aan habeen iyo maalin fadhiisanna waa jireen marka inta ka soo qayb gashay inta aan ka soo qayb gelin ee fursadda u weyday iyo inta ka soo shaqaysay wanaagga tirada badan la samaysay dhammaantiin waa idin mahad celinayaan warka waxaad moodaa caawa intii halkan lagu hayay ayaa xoogaa lodaahay warar badan oo murtilana waa la yiri marka aniguna waxaan doonayaa inaad xoogaa bal ib dul qaadataan si aan idinkaaga sheekeeyo bal galmudug aniga laftirkayga farxad weyn ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo shirkan iyo xafladan qiimaha ballaaran
waddankan Ingiriiska waa waddankii aan ka tegay ee aan ka aaday Galmudug haddana isagii ayaan ku soo laabtay sharaf bayna ii tahay caawa inaan dadkayga dhex joogo oo aan la damaashaadayo sida aan ogsoonnahay laga soo bilaabo 1991 kadib markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliyeed ilaa waqtigan aanu joogno dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaa la soo gudboonaaday marxalado adag oo aan kala go' lahayn sida dagaallo colaado burbur iyo dhibaatooyin fara badan fatah iyo dib u dhac weyn oo saameyn dhinac walba oo taaban adeega lagama maarmaanka u ah bulshada Soomaaliyeed waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay adeegyadii ay heli jireen bulshadu sida caafimaadka waxbarashada nabadgelyada iyo wixii la midka ah waa nasiib darro weyn oo ummadda Soomaaliyeed ku wada habsatay waaye hirgelintii dhismihii dawlad goboleedka Galmudug ee 2006 ayadoo la wadaagta dhibaatooyinkii iyo burburkii guud ee ummadda Soomaaliyeed ku dhacay haddana bulshada deegaanka Galmudug oo aan magacooda ku hadlaya iyo kuwa deegaanka dariska ah ee gobolada dhexe iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliya waxaa ku dhacay dhibaatooyin fara badan oo u gaar ah haddaba si loo badbaadiyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaas loona ilaaliyo taariikhda soo jireenka ah ee xag halgan iyo gobonnimo doon ee lagu yaqaan gobolada dhexe ayaa aqoon-yahanada ku abtirsada gobolada dhexe ee gudaha iyo dibadda odayaasha dhaqanka bulshada qaybaheeda kala duwan waxay go'aansadeen 14 Agoosto 2016 in ay dhidibada u aasaan dawlad goboleed lagu magacaabo Galmudug ujeedada loo aasaasay Galmudug waxaa loo aasaasay inuu u adeegto bulshada ku nool gobolada dhexe ayadoo u taagan in ay buuxiso kaalinta adeeg oo ay bannaysay dawladdii dhexe ee burburtay dawlad goboleedka Galmudug ma xambaarsana siyaasad ay uga go'ayso dalka intiisa kale mana aha mid tartan awoodeed kuma jirta dawladda dhexe ee Soomaaliya laakiin waxay ku salaysan tahay sharcina ku tahay ahdiga dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay xilligan astaan u tahay badbaadinta bulshadeeda barina waxay hormood u noqon midnimada Soomaali weyn oo qaran ah xiriirka Galmudug iyo dawladda dhexe waxay si rasmi ah u aqoonsan tahay dawlad goboleedka Galmudug sidoo kale Galmudug waxay aqoonsan tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya